mudaharaad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dadweyne tiro badan oo ka tiiraanyeysnaa tacadiyadii uu maamulka Somaliland kula kacay maalinimadii shalayta shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. dadkan mudaharaadaya ayaa intooda badan madaxa ku xidhnaa calaamado casaan ah oo dadka Soomaaliyeed ay u isticmaalaan murugada, waxaanay mudaharaadkoodan ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dadka shacabka ah ee ciidamada maamulka Somaliland ku waxyeeleeyeen maalinimadii shalayto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. caruurtayada iyo maxaan ku raadaya maatada oo maanta laynayo siilaayo waa mid lagala xisaabtamayo maxkamadda heeg waa mid lagu saarayo yuuna yarsan shacabka iyo caruurta iyo curyamada iyo maatada guryahooda ku xasuuqayo guryahoodii yuuna yarsan yay wax dhow la noqon yay la fududaan maxkamadda heeg. waxaan halkan uga tacsiyeynayaa dadkii maanta dhimashada iyo dhaawaca ku soo gaareen gobolka Sool. waxaan aad uga xumahay siilaanyo oo jabhada inuu maanta gobolkayga intuu ku soo duulo uu shacabka laayo. waanu isgaranaynaa raggii buuraha ka soo tagi jiray weligiis. caruurahayaga iyo maatadayada ay maanta ku laayeen Laascaanood oo ay ku laayeen Buuhoodle inaanay ka naasnaasinayn. siilaanyo wuu ogaan doonaa ta ku dhacda iyo taan ku samayno. siilaanyo wuu ogaan doonaa. waxaan leeyahay waa shacab, waa caruur, waa arday, wax qangaari kuma jiro, waa dumar. suga siilaanyo waxaad inaad gul gaadhay guuldarraad ku sugan tahay maadaama aad isaaq taagan aad shacabka dhibaato ku soo duushay. wararka naga soo gaaraya ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay taxshiirad shalayto ciidamada Somaliland kula kaceen dad shacab ah oo mudaharaad lagaga soo horjeedo maamulka Somaliland ka dhigay magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo hadda inta la og yahay khasaaruhu gaarayo dhimashada 2 ruux iyo dhaawaca 5 kale, inkastoo ay jiraan ila wareedyo kale oo sheegaya in khasaaruhu intaasi ka badan yahay. mana ahan markii ugu horeysay ee ciidamada maamulka Somaliland ay ku waxyeeleeyaan magaalada Laascaanood dad shacab ah oo dareenkooda ku aadan diidmada joogitaanka ciidamada Somaliland ee gobolka Sool ku muujinaya isu soo bax. waxaana inta badan ay warbaahintu ka faallootaa tacadiyo isugu jira dil, xarig iyo dhibaatooyin kale oo lagu kaco dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Laascaanood. Cabdiraxmaan Soomaali, Royal TV, Nairobi, Kenya.